بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى يا مهد أودان أسقناتي ونوافجي إن نعاوى هدنا إن شاء الله تعالى سكوكي ماني برنامجتان iyo muxaadaraadkan waxaa منظمة الإحسان للرعاية الاجتماعية ay soo qaban qaabisay سلسلة المحاضرات dhowr muxaadara إن شاء الله تعالى oo qaarna ka dhici doona xaafadda Islii, qaarna إن شاء الله تعالى waxay ka bixi doonaan xaafadaha Sawdsea. muxaadarada ugu horeysa caawa قصر الأمل والاستعداد ليوم الرحيل ay noqon doonto إن شاء الله تعالى. waxaa martino maalmahan fadiilad sheekh Mustafa Xaji Ismaaciil, ilaahay subxaanahu wa tacaala xifdiyo khayr badan ilaahay hasiyo sheekha. muxaadaradan caawa insha allahu tacaala ayaa ugu horeysa. maalmaha soo socdana insha allahu tacaala muxaadaraad kale dib baan ka cilaamin doonaa ayaa ayagana jiri doona hadduu ilaahay idmo. sheekh ayaan kusoo dhaweynaynaa muxaadarada ugu horeysa caawa qasru lamal واستعداد ليوم الرحيل. فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، sida walaalku tilmaamay darsigu wuxuu ku saabsanaan doonaa qasru اlأmal, rajada ama yadidiiladoo la soo gaabiyo. haddaan si kale u nidhaahnana waxa weeyaan aakhiro oo loo diyaar garoobo, oo qofku hadduu rajadiisu tuulu اlأmal uu israa wax badan baad noolaan doontaa in sha allah, camal kasta dib uu u dhigi doonaa, xagga dambead ka hagaagi doontaa buu ku fakeraya. laakiin qofku hadduu nolosha si kooban uu u arko, hadduu xaqiiqada inaanu berriba noolaan karin haddii rabbi qoro uu fahmo, waxay noqonaysaa maantuu haystaa inuu maanta ka faa'iidaysto. haddaba mawduucan si aynu uga warranno waxaynu u baahannahay xaqaa'iq dhowra inaynu isla garanno. dhowr shay. ka koowaad waa xaqiiqatu linsaan, bini aadamka iyo qaabka alla u abuuray. bini aadamku wuxuu dunida u joogaa in la itixaamo. xorriyad baa ilaahay siiyey, waxaana loo abuuray qaab uu wax dooran karo. laakiin doorashada uu dooranaya waxay u baahan tahay caqli iyo aqoon iyo iraada go-aan. asal waxa uu nebigu leeyahy calayhi الsalaaةu wasalaam, xadiidka bukhaari warinaya cabdillaahi bnu mascuud uu ka warinaya nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam. nebigaa wuxuu jeexay buu yidhi khad murabbaca square, khad afargeesla buu sameeyey. dabeetana nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam bartanku haddana khad kale ka dhex saaray. afargeeska khadkii ahaa ayuu khad kale ka dhex saaray. khadkaa dhexe xariijimuu u yeelay. waxa uu ku tilmaamay markaas waxaan afarta hareerood kaga wareegsan qofka waa ajashiisii, waa geeridii oo aanu dhaafaynin. khadkan ka dhex baxayna waa amalki iyo rajada. geerida meel ka fog ayuu qofku inta badan ka rajo qabaa. bini aadamku adduunka wuxuu ka baxaa isagoo weli qabyo arrimuhu ka yihiin, isagoo weli wuxuu qorsheeyey ay qabyo tahay buu baxaa. waxa uu kaloo nebigu xariijimaa yaryara kale ka baxaya ku tilmaamay inay tahay acraadu dunya, mashaakilka adduun oo kan xaganayo kani xaganayo kani xaganayo aanu marnaba mashkilad la'aanaynin. idan wuxuu xadiidku sawirayaa qofka bini aadamka ah rajada iyo amalka uu qabaa, yididiilada uu qabaa
inaanay xad lahayn inay cimrigiisa iyo wakhtigiisaba ka dheertay hada huwa alasl laakiin waxaa la rabaa qofka muslimka ahi inuu masaladaa xadeeyo oo meel ka dhow uu arko xaqiiqada labaad aynu tilmaamaynaa waxay tahay geeridu waa alxaqiiqa alwaxiida almuctarafi biha bayna annaas waa xaqiiqada bini aadam oo dhammi uu rumaysan yahay cid kastaaba inay geeriyoonayso waxaad garan kartaa un dadka intii kugu hareeraysnayd geeridooda ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay isagoo nebi moxamed la hadlaya innaka mayitun wa innahu mayituun innaka mayit waad dhimanaysaa baa la leeyahay waa qasab iyaguna way dhimanayaan kuwan kaa soo hor jeedaana way dhimanayaan kullu man calayha faan waxaa nolosha kor saaran oo dhammi dhammaantood waa dhammaanayaan baa ilaahay leeyahay wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhuld afa in mitta fahum اlkhaaliduun adiga hortaa cid aanu waaritaan siinay ma jirta baa ilaahay leeyahay adigu haddaad geeriyooto mayagaa waaraya baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala idan haddaan nebi maxamed sayid اlkhalq ilaahay doortay ilaahay ku leeyay waad geeriyoonaysaa waxa ka dambeeyana waa geeriyoonayaan gaaladii ku jeesjeesaysee lahayd rayb almanuun baan la sugaynaa iyo waxaan baan la rabnaa ilaahay wuxuu yidhi adiguna waa dhiman iyaguna way dhiman cid hadhaysaa ma jirto taasina waa xaqiiqo labaad xaqiiqada koowaad waa in adiga rajadaada iyo amalkaagu u dheeriyey xaqiiqada labaadna waxa weeyaan geeridu inay laabudda tahay xaqiiqada saddexaad meesha taalla waxa weeyaan adduunku waa daaru mamar waa dhul la marayo waa meel qof waliba uu soo marayo waad dhalatay dabeetana maro yar baa lagugu duuduubo waxaa la yidhi wiil baa reerka ku soo kordhay gabadh baa soo korodhay berrina waad baxaysaa maro kale intay kugu duuduubaan bay odhanayaan waa mayda xabaasha geeya adoo qaawan oo maro yar lagugu duuduubaad imanaysaa adoo sidii iyo maro yaroo kale lagaa raaciyay baad haddana baxaysaa idan waa mamar waa meel aad marayso waa jid bini aadamku uu muddo dhex soconayo waxaana ka dambeeyaba rabbi tilmaamaya la kulanka alle qof waliba inuu rabbi la kulmi doono in la xisaabin doono janno iyo naari inay ka dambayso saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy qul ina almowta aladii tafiruuna minhu fainahu mulaaqiikum geeridan aad ka baxsanaysaan ee ka rooraysaan waa idinla kulmaysaa hadday meeli ku xanuunto dhakhtar raadiya kan raadiya adduun waxaad haysato ku bixi waxaad rabtaa bal sidii aad maalma usii jiri lahayd ayaad dadaalkeed ku jirtaa laakiin ilaahay wuxuu leeyahay waa mulaaqiikum waa idinla kulmaysaa maxaa ka dambeeya uma turadduuna ilaa caalimi اlgaybi waالshahaada fayunabbi'ukum bima kuntum tacmaluun waxaa laydiin celinayaa baa la yidhi caalimu اlgaybi waالshahaada allaha waxa maqan iyo waxa joogaba og allaha aan waxba ka qarsoonayn allaha og wax kastoo aad samaysay hadduu yahay waxaad qalbiga ku caqiidayso ku haysatay iyo hadduu yahay waxaad ficil ahaanba u samaysay wax kasta oo kaa soo baxay qofka bini aadamkaa rabbiga og oo weliba ogaan qura maaha fayunabbi'ukum bima kuntum tacmaluun baa ilaahay leeyay oo idin warrami doona waxaad samayseen oo dhan kullu nafsin daa'iqat اlmowt wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaamah faman zuxzixa can الnaari waudkhila اljanna faqad faaz wama alxayaaةu اdunya ila mataacu اlguruur naf waliba geeriday dhadhamin baa ilaahay leeyahy kadibna wixii aad shaqaysateen baa laydiin oofinaya laydiin dhammaystiraya ninkii naar laga durkiyo ee janno la geliyo kaas baa liibaanay baa ilaahay yidhi subxaanaه wa tacaala xaqiiqada afraad xaqiiqada koowaad waa inaad amal badan tahay xaqiiqada labaadna waxa weeyaan
in laabud aad geeriyoon doonto xaqiiqada saddexaadna waxa weeye inaad rabbi la kulmi doonto iyo xisaab iyo qiyaame iyo janno iyo naar shayga afraad aynu tilmaamaynaa wuxuu waa wada tilmaamaynaa uun waxaa layna faray arrinku mar hadduu caynkaa yahay inaynu amalka soo gaabinno adduunka rajada aan ka qabno iyo waxqabadkiisa adduunyo ku saabsan inaynu soo koobno geeridana inaynu xoog u xasuusanno ilaahay la kulankiisana inaynu xasuustiisa badinno saa awgeed baa ilaahay wuxuu leey yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllah xaqa tuqaati walaa tamuutun ilaa waantum muslimuun war kuwa iimaanka laga helayow ilaahay rumeeya kuwa iimaanka laga helayow alle cabsidiisa badiya ittaquu اllah ilaahay ka cabsada oo ha geeriyoonnina baa la yidhi ha geeriyoonnina ilaa waantum muslimuun idinkoo muslima mooyaane oo ha geeriyoonta miyaynu isu haynaa wakhtiga la geeriyoonayo kaama haysid laakiin maxaa lagaa rabaa inaad isu hayso inaad islaamnimadan laasimtid wakhtiga geeridu imanaysa garan maysid macaa waad dhiman ma barraad dhiman ma bil baad sii joogi ma sanadaad joog garan maysid laakiin waxaa lagu yidhi geeridu ha kuu timaado adoo diyaara adoo muslima oo ilaahay isu dhiibay geeridu ha kuu timaado walidalik baa awraadda nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ina baray waxaa ka mid ah habeenkii markaad seexanayso inaad isa sii dhiibto tidhaahda ilaahu naftatan haddaad qabatana waxa aad dadka saalixiintaas aad u faxfadha ilaahu haddaad soo celisana yacni waxaad ku talagelaysaa wardigan aad akhriyaysaa macnihiisu waxa weeyaan waa seexanayaa se garan maayo inaan soo kici doono marka rajada waagu inuu kuu baryi doono baad meel iska dhigtay waa wardiga aynu akhriyayno markaynu seexanayno marka aad soo toostana wardi kale la yidhi oo akhri oo ah ilaahay inooleeya alxamdu lilaahi aladii axyaanii bacda maa amatanii wa ilayhi nushuur ilaaha dib ii soo kiciyaan ku mahadinaya ilaahu jaanis baad siisay baad leedahay habeenkii markaad seexanaysana waxaad leedahay ilaahu naftan haddaad qabatana u naxariiso haddaad soo celisana saalixiinta waxaad ku ilaaliso ku ilaali haddaad soo toosto oo aragto inaad waa kuu baryo aad indhaa kala qaadayna waxaa lagu yidhi waxaad tidhaahdaa ilaahu adaa mudan adaa ammaanta leh adaan kugu mahadinaya geeri dabadeed isoo nooleeyey idan waxaa la tilmaamaya qofka muslimka inuu diyaar noqdo markaad sii seexanaysana geeraad diyaar u ahayd markaad soo toostayna waxaad u arkaysaa jaanis aad camal ku siiso ku samayso in lagu siiyey idan kaa wardi ka dhiga baa lagu yidhi haddaynu awraaddaynu akhrino habeenkii markaynu seexanay markaynu soo toosno aynu fahamno waxaynu garanaynaa in layna leeyahay istaciddu war diyaar noqdo oo waa walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun xaqiiqo shanaad baa jirta oo maxay ah iyadoo intaasoo xaqaa'iqa laynoo sheegay ayaa haddana waxaa la yidhi akaru الnaasi waa haafil dadka inta badani waa dhoohani waa moogani xaqaa'iqda agtiisa taalla ee nafta bini aadamka iyo hungurigeeda uu og yahay iyo waxay raadacaynayso ee uu ogyahay in geeriyi ka dambayso ee uu ogyahay goor uu dhimanaya inaanu garanaynin ee uu ogyahay qiyaame iyo xisaab iyo rabbi is-hortaaggi inuu ka dambeeyo ee uu og yahay in loo sii sheego la yidhi war ha dhimanin adigoo muslima mooyaane intaasoo xaqaa'iqa isagoo og ayuu haddana bini aadamku haafil yahay hafla hafladu waa dhoohani waa waxay ahayd inaad xasuusato la ilaabayo nisyaan maaha waa hafla waa dhoohani waxay ahayd inaad xasuusato oo haddana aad moogan tahay waa waxay ahayd mar kasta inay xasuustiisu kula joogto oo sidii qof aan ogeyn aad u dhaqmayso hafladu markaa waxa weeyaan xaqaa'iqdaana waan rumaysnay haddana waxaan u dhaqmayaa sidii qofkii oo aan kiiba ahayn walidalik baa ilaahay wuxuu leeyay iqtaraba linnaasi xisaabuhum wahum fii gaflatin mucriduun maa yaأtiihim min dikri min rabbihim muxdaثin ila istamacuuhu wahum yalcabuun laahiyatan quluubuhum dadka xisaabtoodu waa dhowaatay baa ilaahay leeyay
laakiin xaalad ay ku sugan yihiin oo ah gafla iyo icraad iyagoo haafiliina oo rabbi ka sii jeeda oo qiyaamaha xasuustiisa ku badnayn oo xisaabta xasuusteedu ku badnayn ayuu nool yahay xagga rabbi waana wax lagu xasuusinaya ugama timaado cusubi baa ilaahay leeyahy ilaa iyo waxay maqlaan iyagoo cayaaraya si jiddiya uma qaataan warka markaad si dhaba u qaadato waxaad ku tala gashaa inaad fuliso laakiin markaad qaadato warka maqashid adigoo aan jiddi ahayn adigoo aanay kaa dhab ahayn lacib baad iskaga jirtaa laahiyatan quluubuhum baa ilaahay ku tilmaamay walidalik baa ilaahay nebigiisii wuxuu ku leeyahay waandirhum yowma alxasra waandirhum yowma alxasra id qudiya alamru wahum fii gafla wahum laa yuuminuun waxaad u digtaa oo uga digtaa oo ugu digtaa yowmu alxasra maalinta calaacalka maalinta tiiraanyada iyo murugada uga dig barri markaad geeriyooto rabbi irjicuuntaa badan doonta ilaahu jaanisna sii ilaahu iceli waxaa la tilmaamayaa mashkiladda taagani inay tahay maalintaa aad hadhow dib u murugoon doonto dib u tiiraanyoon doonto uga dig baa ilaahay yidhi subxaanaه wa tacaala haddaba ayuha alaxiba maxaa keenaya inaynu haafiliin noqonno maxaa keenaya inaynu tuulu اlamal rajayno inaynu weligaan noolaanayno inaad tilaada kollayba waad ninka dhallinyaradii wuxuu is leeyahay kollayba lixdanka iyo horta waad gaadhi doontaa ka lixdan joogaana wuxuu is leeyahay malaa kollay ilaahay ilaa siddeetanka sagaashanka waa ku gaadhsiin doonaa idan dadku rajo qabaa uun xagga hore in wax ku hadheen maalmaha dambe kama gedisna maalmahaagii hore kuwaad shalay soo martay iyo kuwa hadhay waa isku mid maanta haddaad shaqaysan kari weydo barrina waa adagtay inaad shaqayso bal mar kastoo aad da'i kuu sii korodho waxay u badan tahay in daalka iyo cajsiga iyo wahsiga iyo tamaryaridu kugu sii kordhi doonto inta badan dadku marku wuxuu dantiisa gartaa goor aanu fulin karaynin goor aanu waxqabad lahayn intuu waxqabadka leeyahayna waa haafil saa awgeed hafladan waxaa keenay tuulu اlamal rajo aad ka qabto bal horta kollayba waxooga baad noolaan doontaa hadhow baad toobad keeni doontaa kan rabbigii caasinaya ee maanta cisyaanka samaynaya woogii waxaanu wadaa inuu cisyaan tahay inuu ama zina tahay ama khamri tahay ama been tahay ama xaaraan tahay ama boob tahay ama dhac tahay ama kish tahay ama dulmi tahay wuu ogyahay waxa kanuu samaynaya inay xun tahay laakiin wuxuu isku waaninayaa saa dambaad toobad keeni barraad ilaahay uu soo noqonay barorta qoladan iska dhici saa dambe watakunuu min bacdi qowman saalixiin tii ilmo nebi yacquub walaalkood bay god ku sii wadaano waxay leeyihin aan dilloo god ku ridno haddana waxay leeyihin gadaashi baynu dad fiican noqon doonnaa isaga gadaashi ayaynu soo hagaagi doonnaa ilaahay markaa wuxuu ina leeyahy innahum yarawnahu baciidan wanaraahu qariiba geerida iyo qiyaamaha iyo waxa kan dambeeya iyagu wax fog bay u arkaan baa ilaahay yidhi annaguna baa ilaahay leeyay wax dhow baanu u arkaynaa waa amalkan iyo rajadan dheer iyaga wakhtiga wuu la dheeriyey saa ogeed baa ilaahay gaaladii wuxuu yidhi darhum ya'kuluu wayatamatacuu wayulhihum اlamalu fasawfa yaclamuun iska daa baa rabbi yidhi subxaanaه wa tacaala daa maxaa loo daynayaa ha iska cunaan baa la yidhi maladaat اlxayaa cunnada wax naf leh ha moodaan oo ha iskaga raaxaystaan ha ku tamatacaan wayulhihum اlamalu fasawfa yaclamuun oo ha mashquuliyo baa ilaahay leeya amalku ha mashquuliyo amalku rajo qabkaasi ha mashquuliyo laakiin rabbi wuxuu leeyahy subxaanaه wa tacaala fasawfa yaclamuun siimaan dambe wakhti dambe ayay fahmi doonaan idan ayuha alaxiba
qasru اlamal sharciga wuu ku ammaanan yihi inaad rajada soo koobto waa ammaan waayo waxay keensanaysaa inaad xoogsato oo maalan maanta haddii lagu yidhaahdo berraa lagu dilayaa berrito ayaa lagu dilayaa waxaad soconaysaa bal maanta wixii aad qabsan karta un haatan sii qabso idan inaad amalkaaga soo koobtaa waa ammaan inuu kula dheeraado oo tuululamal aada rajo dheer sii qaadaana madmuum bay ku tahay qur-aanka qur-aanka waxay ku tahay waxaan ammaanayn walidalik baa ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahy afara'ayta waxaa rabbi leeyahy subxaanaه wa tacaala afara'ayta in matacnaahum siniin bal ka warran baa ilaahay leeyahy subxaanaه wa tacaala in matacnaahum siniin dadkan haddaanu sannado u raaxayn haddii cimrigaba loo dheereeyo uma ja'ahum maa kaanuu yuucaduun cimrigaba haddii loo dheereeya laakiin kadib uu u yimaado wixii loo yaboohayay maa qana canhum maa kaanuu yumatacuun baa ilaahay yidhi waxba kagama filo ka deeqi maayo wixii ay ku soo raaxaysteen oo dhamm waxba noqon mayso yacni waxba kama jiraan baa ilaahay leeyahy saa awgeed baa ilaahay duul uu maagayabu wuxuu ku tilmaamay walatajidannahum axrasa annaasi calaa xayaatin ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون إلهي سقو يهود كورميا وحا ليلي waxaad heli doontaa iyagoo ah kuwa ugu ilaalin badan ugu jacayl badan nolol calaa xayaa ayan kaanat calaa xayaatin waa la nakireeyey nolol uun inuu jiro uun kuwa ugu jacayl badan yahuudiya inta mushrikiinta abaad arki doontaa baa ilaahay leeyahy midkood wuxuu jecel yahay baa ilaahay yidhi 1000 sannadood in la nooleeyo laakiin ilaahay wuxuu leeyahy subxaanaه wa tacaala 1000 sano waxba maaha wamaa huwa bimuzaxzixihi min alcadaab 1000 sano cadaab kaa celin mayso waa berrito 1000 sano berray dhammaanaysaa si awgeed baa ilaahay mu'miniinta isagoo la hadlaya wuxuu leeyahy alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri اllah wma nazla min alxaqi walaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qablu fataala calayhim اlamadu faqasat quluubuhum wakaiiru minhum faasiquun alam ya'ni miyaanay gaadhin baa la leeyahy miyaanay dhicin kuwa mu'miniinta ahi inay wakhti gaadhaan qalbigoodu uu ilaahay dikrigiisa u khushuuco iyo waxa xaq lagu soo dejiyey wakhti ay waantoobaan weli miyaanay gaadhin baa la leeyahay dadka mu'miniinta ahi oo aanay la mid noqon baa ilaahay yidhi sidii kuwii iyaga ka horreeyey ahlu kitaabka ahaa qur-aanka waxyaabo badan oo ilaahay kuwii kutubta la siiyey inaga horreeyey lagu ceebeeyey oo aynu samaynayna dee ammaan noqon maayaan waa tajriba bashariya ayaa laynoo soo naqliyey taariikhdu waa meeluu bini aadamku ku cibro qaato tajaaribtii dadkii hore sidii kuwii kitaabka la siiyey ee wakhtigu uu ku dheeraaday ee dabeetana qalbi engega qaaday baa ilaahay leeyahy wakhtigii ku dheeraaday waxay ka dhaxleen waa qalbi engeg sida awgeed baa nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu inooga digayaa uu leeyahy laa yazaalu qalbu اlkabiiri shaaban fi اثnayn xadiidka bukhaari kama zuulayo qalbiga qofka weyni laba dhallinyarunbuu ka ahaanaya yacni waxa weeyaan qofku waa gaboobaya wax badanna wuu ka gaboobaya ma awoodi karo laakiin laba weli waa dhallinyaro yacni laba baa la shay buu nebigu tilmaamayaa ninka weyn iyo ka yari isku meel bay ka taagan yihiin oo waa maxay labadani xubu dunya wa tuulu lamal buu nebigu yidhi adduunye jacaylka adduunka marna lama naco adduunka iyo jeclaantiisa iyo noloshan iyo jeclaanteeda bini aadamku maftuur buu ku yihi laakiin waxaa laynoogu talagalay inaynu nafta rabbayno oo aakhiro jacaylkeeda ku bedelano iyo tuululamal inuu rajo ka qabo uun waad sii noolaan doontaa idan ayuha alaxiba alamalu fi dunya muhlaka
adduunka rajadiisan dadku ay sii qabaana tirada badan leh waa waxa lagu halaagsamo aakhiro rajadeeda ayaa raxmo ah afaman wacadnaahu wacdan xasana fahuwa laaqiih ilahay wuxuu leeyay miyay siman yihin kii aanu u yaboohnay yabooh fiican oo la kulmi doona yacni aakhiro u xoogsaday oo rabbina janno u ballan qaaday oo dabeetana la kulmay kaman matacnaahu mataaca alxayaati اddunya uma huwa yowma alqiyaamati min almuxdariin kaa iyo miyay siman yihin baa ilahay leeyay midaan adduunka waxoogaa ku siiyey oo adduunka inuu ku bidhbidhsado la siiyey aakhiro laakiin kuwa naarta la xaadirinaya ka mid ah labadaasi miyay siman yihin yani ilahay wuxuu isu kan dhinac dhigayaa nin adduunka waxoogaa ku helay sulto iyo lacag iyo waxoogaa inta bini aadamku uu raadceeyo uu ku faano oo adduunka intii uu noolaa loo bidhbidhiyey laakiin maantuu godku galo naartiisu bilaabmayso adduunka hadduu 50 sano 60 sano 70 sano wuxuu bidhbidhsadaba hadduu dhammaysto oo uu cadaab bilaabo waxaa hore waxba kama jiraan kaa iyo miyay siman yihin baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala kii adduunka aan wax badan ku hayninba laakiin aakhiro yimi isagoo rabbigii rumaysan wixii alla u yabohayna lagu abaalmarinayo in rajadeennu dheeraato aynu yididiiladan tirada badan la qabno maxaa keena waxay culammadu yidhahdaan laba shay baa keena midi waa xubu dunyaagaynu sheegnay waa adduun jacayl oo qofku waxa uu la nool yahay la noolaado ee uu markaa hayo waxa maqan inta badan ma dhaafsado bal tuxibuuna alcaajila watadaruuna alaakhira tan hore degdegta badan leh aan la nooshiin ayaa jeceshiin baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala tii dambe ee lagu waarayeyna waa ilaabaysaan idan xubu dunya ka labaadna oo adduunkan isaga jacaylkiisa man kaana yuriidu alxayaaةa اddunya baa ilahay yidhi man kaana yuriid alxayaaةa اddunya waziinataha ninka doonaya adduunka noloshiisa iyo quruxdeeda hadda u fiirso erayga iraada baa laga cabiray man kaana yuriid baa la yidhi ninkii doonaya nolosha adduun iyo quruxdeeda nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wixii ay shaqaystaan adduunka waa siinaynaa wahum fiiha laa yubkhasuun lagamana nuqsaaminayo laakiin ulaa'ika aladiina laysa lahum fi اlaakhirati ila الnaar waxabita maa sanacuu fiiha wabaطilu ma kaanuu yacmaluun laakiin kuwaasi baa ilahay leeyay waa kuwa aan aakhiro waxba ku lahayn naar mooyaane wax kale aakhiro ma leh waxay shaqeeyeenna waa la buriyey camalkooduna waa baaطil yacni adduun buu u noolaa adduunkii wuxuu ka calaf qaaday buu leeyahay aakhiro mar haddaanu ku xisaabtamin aakhiro goormaad ku xisaabtamaysaa marka wax kastoo aad haysato intaad aakhiro qabadsiisaa ay kaala qurux badan tahay intaad adduunka ku hayso wakhtigaad ku bixisay aakhiraad ka jeceshay wakhtigaad adduunka ku bixisay cilmigaad aakhiro ku bixisay baad ka jeceshay cilmigaad adduunka ku bixisay hantidaad aakhiro ku bixisay baad ka jeceshay hantidaad adduun ku bixisay idan qofka kani aakhira uga muhiimsan ama cagsigu bal tu'hiruuna alxayaaةa اddunya wاlaakhiraةu khayru waabqaa baa ilaahay yidhi waxaad door bidaysaa nolosha adduunyo nolosha adduunyaad door bidaysaa waa kii nebigu lahaa calayh الsalaaةu wasalaam waar midkeen baa xoolaha carruurtiisu xoolaha qofka dhaxlaya agtiisa lagaga jecel yahay xooluhu isagu leeyahay yani wuxuu nebigu tilmaamayaa waxaad la sii baxdayna inay waxaagii yihiin waxaad ka tagtayna de inaad ka tagtay cid kale ku tasarufi doonta idan adduunye jacaylku waa waxa koowaada dhibta keena waana wax laynagu itixaamay watuxibuuna almaala xubban jamma xoolaha xog baa u jeceshin baa la yidhi waa cala alfitra waasuu bini aadamku u badan yihi
waxaa ilaahay ku tilmaamaya wainahu lixubi اlkhayri la shadiid xoolaha jacaylkooda waa ku adag yahay laakiin maxaa la tilmaamay aakhiro markay tahay waxaa la yidhi waa kuwa bixinaya iyagoo jecel abuurkaaga waa inaad xoola jeceshay waa saa ilaahay ku abuuray laakiin waxaa la tilmaamay haddana kuwa aakhiro waxgeysanaya inay maxay yihiin kuwa bixinaya iyagoo necab bay bixiyaan xoolaha maya isagoo xoolihii weli jecel ayuu bixinayaa saa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa inay bixinayaan lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun baa ilaahay ku tilmaamaya ama ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa inay masaakiinta iyo dadka baahan iyo kuwan wax siinayaan wayuطcimuuna الطacaama calىa xubih miskiina wayatiima waasiira ilahay wuxuu kaaga markhaati kacaya adoo bixinaya hadda inaad adduunkan jeclayd laakiin inaad naftaada ka goyso aad ku tala gashay inaad aakhiro u horaysiiso shayga labaad ee amalka dheerayntiisa keensada iyo adduun jacaylka kani waa aljahlu bay yidhaahdaan kow aljahlu biاllaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay oo aad garan weydo ilaahay haddaad dhab u garanayso dhab baad u weynaynaysa haddaad dhab u garanayso dhab baad awaamirtiisa u raacaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadkiisa haddaad baratay inuu kariim yahay hani yahay xakiim yahay caliim yahay khabiir yahay sifaadkaasaad la dhaqmaysaa idan waxaad noqonaysaa qof rabbigii toos ugu xidhan haddaad si aanad garanaynbo gaalka noqoto ama haafil noqoto ama jaahil noqoto wamaa qadaru llaha xaqa qadrihigaad ku dhacaysa kuwii la yidhi alle ma weyneeyaan weynidu xaqu leeyahy waxaa la mid ah aljahlu bixaqiiqati اdunya adduunka haddaanad xaqiiqadiisa garanaynin ilahay in badan buu qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya kamahali kaytin acjaba alkufaara nabaatuhu uma yahiiju fataraahu musfar wuxuu la mid tahay baa la yidhi adduunkani sidii roobkaa da-ay ee meeshu yaro cagaarantay ee hedhowna baabaaday waxaa ilaahay inoogu tilmaamayaa inay tahay un tafaakhur iyo takaahur iyo caynka kan waxaa ilaahay inoo tilmaamaya alhaakum الtakaaثuru xataa zurtum اlmaqaabir kalaa sawfa taclamuuna uma kalaa sawfa taclam xaqiiqaة اdunya markay kaa libidho iyana waa wax keena dhibta aynu ka warramayno waxaa la mid a xaqiiqaة اlaakhira markaad garan weydo qiyaamaha 50 sannadood meel la taagnaanayo 50 sannadood qiyaas meel la taagnaanayso lagu xisaabayo basharka oo dhami taagan yihi khalaa'iqdoo dhami waxaa dembi gashay ay arkayso lagugu markhaati furayo 50 sana bacdahaa janno iyo naar iyo siraad iyo xawd iyo waxaasoo dhan haddaad ilowdo qofku hadduu mahlakada xasuusan yahay maalan haddii lagu yidhaahdo kayntaa libaax baa ku jira aad ku qasbantayna inaad kaynta ka tallowdo adigoo aan libaax ogayn oo iska laafiyoonaya miyaad maraysaa mise waxaad maraysaa adigoo labada hareeroodba eegaya oo hor iyo gadaal iyo sanqadh kasta jabaq kasta kabahaagu kuu baxaya inta kala daaya adoo wada dheg ah oo wada il ah oo soo jeeda oo aan luloonaynin oo riyoonaynin baad maraysaa waayo meesha in mahlaka ka jirta baad ogtay ninka aakhiro ogi waa caynka aakhiro iyo waxa dambeeya ninka ogi waxaa waagu u baryayaa isagoo soo jeeda wax maqlaya wax arkaya eegaya dunida ku xisaabtamaya maxaa rabbi ogolaya maxaanuse ogolayn maxaa lagu badbaadaya maxaanse lagu badbaadaynin isagoo xayaya qalbi nool wata ayuu waagu u baryaya sidaa awgeed aljahlu bixaqiiqati اdunya wa bixaqiiqati اlaakhira والجهل بعظمة الله سبحانه وتعالى الجهل بقى أساسه أمل كان اسكدر حب الدنيا بقى أساسه سيدا أوجد علماء في عربي واحد كان رسارة واحد هذا أمل يا طمع يا رجاء واحد هذا واحد بعيد كأن لقارين هنجريين تسا أمل بالله هذا واحد قريب كأن لقاري كرنا هنجري طمع بالغت الماما waxa u dhaxeeyana bay yiraahdeen hungurigiisa rajaa baa la yiraahdaa walidaalika ilaahay naxariistiisu inay dhowdahay
nebi ibraahim markuu tilmaamay wuxuu uhi waladii aطmacu an yakfira lii khati'atii yowma اddiin idan ayuha alaxiba nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam adduun baa soo galay nebiga ilaahay imtixaanaadka o dhan wuu mariyey faqri wuu soo maray iyo wax la'aan cabsi wuu soo maray iyadoo laga xoog badan iyo saxaabadiisa la laynayu soo maray isagoo xoog badan buu soo maray isagoo ciidamadiisu ay qabsanayaan dhulkii laga soo saaruu soo maray isagoo hantidu intay soo gashay ku wax weydiistay laba buurood dhexdood xoolo daaqaya nin qura kule kaxaysuu soo maray oo intuu tolkii u tago uu leeyay nebi maxamed wuxuu bixinayaa caطaa'a man laa yakhsha alfaqr midaan faqriba ka baqayn sidii buu wax u bixinayaa ee islaama oo xoolaa soo helaysaan uu tilmaamayo nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam maca annu صaxaaba la noolayd wax haysata haddana wuxuu door biday aلzuhdu ayuu isagu door biday zuhdigu waxa weeyaan adduunku inaanu qalbigaaga dayna gacantaada dego hadduu ku soo galana gacantaada inuu ku jiro laakiin nolosha adiga kuu gaara inaad zuhdiga doorato walidaalik ayaa ilaahay subxaana wa tacaala markuu nebigu zuhdiga doortay malag baa ilaahay u soo diray dabeetana waxaa lagu yidhi ma waxaad rabtaa nebi ama rasuul boqora inaad noqoto mise cabdan rasuulan baad doonaysa jibriil baa ku yidhi tawaadic lilah ilaahay isu dhuldhig nebi maxamed wuxuu doortay inuu noqdo cabdan rasuula cabdi rasuula kow waxaa nebigu kaa markuu doortay haweenka badh bay ku yaro adkaatay biilkii iyo noloshii yaro adkaatay dabeetana waxay warsadeen nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam in nolosha loo kordhiyo ilaahay wuxuu ku yidhi yaa ayuha الnabiyu qul liazwaajik nebi alla waxaad haweenkaaga ku tidhaahdaa in kuntunna turidna alxayaaةa اdunya waziinataha fatacaalayna umatickuna wasarixkuna saraaxan jamiila haddaad nolosha adduun doonaysaan waan idin siinayaa laakiin anigu ku jiri maayo waan idin sii daynayaa dheh nolosha adduunya dhaldhalaalkeedu wax idinla weyn hadduu yahay waa idin siin waayo nimcadaa waa helaysaan laakiin maca daalika waa idin sii daynayaa haddaa ilaahay iyo rasuulkiisa iyo maalinta aakhiro doonaysaanna ajar weyn baa heli doontaan waxay doorteen ilaahay iyo rasuulkiisa iyo maalinta aakhiro walidaalik baa isagoo meel seexday oo salligii uu ku seexday dhabarkiisa ku yaallo salliga waa taqaaniin dermada marka lagu seexday aan waxba jidhkaaga ka xigin hadha waxaad soo kacaysaa isagoo jidhkaaga sawirkaasi uu ku sawiran yihi cumar baa arko wuxuu ku yidhi yaa rasuula allah low ittakhadta firaashan awhar min haada maad samaysatid furaash kan kuu yaro dhaamo meel ka yaro jirecsan ilaahay rasuulkiisa iyo maad seexatid cumar nabigu wuxuu ku yidhi wamaa lii walidunya war cumarow aniga iyo adduun maxaana kala galay wamaa lii walidunya ayuu ku celiyey wamaa lidunya ani iyo adduun maxaana kala galay waladii nafsii biyadi aniga allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay buu nebigu leeyahy tusaalahayga iyo tusaalaha adduun wuxuu yahay nin socoto ah oo maalin xagaaya geed hadh la soo maray oo hadhsaday saacad maalinta ka mid a oo dabeetana ka tegey tusaaluu nebigu bixinaya waxa wayaan calayhi الsalaaةu wasalaam maalin cadceed kulayl jiro oo xagaaya haddaad safar gasho cadceeddu markay kugu yaro kululaato aad geed hadhsato balaankaaga geed hadhsigani muxuu yihi ways odhanaysaa geedkan daar yaroo fiican ka dhisaad maanta hadhsatide boqorrada kibrey maanta saasay yeelaan guri baad arkaysaa la dhisay oo la yidhaha boqorku sanadkii buu maalin yimaadaa mid boqorradan carbeed ka mid ah waxaa la tilmaamayey gurigiisu 365 qoloo la seexdo hurduuleeye oo loogu beegay maalinba cadceeddu intay dhaqaaqayso kijada iyo musqulaha ku yaallaa 700 ah waa bini aadamku si uu nool yahay nebi maxamedna wuxuu leeyahy calayhi الsalaaةu wasalaam nin safaroo geed hadhsaday ayuun baan la mid ahay buu leeyahy intan adduunka aan joogaaba geed la hadhsaday kama gedisna idan ayuha alaxiba xalku waa qasru اlamal xalku waa inaynu
يديلدان دير سو غابنا حلك waxa weeyaan inaynu aakhiro u diyaar garowno waa xaqiiqo maalin aan fogeen waa lagu qaadi inaynu diyaar noqono saadaradeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam nin saxaabadiisa ka mid oo dhalinyaro ah cabdillaahi ibnu cumar waa nin dhalinyaro ah shaaba waya cabdillaahi dee waa ninkii qaswata uxud laga reebay la yidhi adugu waxaa tahayeen weli maad qaangaadhin qaangaadh la-aan baa looga reebay dagaalka marka nin aad u dhalinyaro weeyaan ninkaa dhallinyaradaa buu nebigu la talinaya intuu garabka qabtay buu nebigu wuxuu ku yidhi kun fi dunya kaannaka gariibun aw cabir sabiil haddii warka nin weyn lagu odhan lahaa waxaad odhan lahayd dee waa nin warka dunida soo dhameeyey oo waxaa la leeyahy war aakhire adigu kollay cimrigaagii qaadataye aakhire usii diyaargarow baa lagu yidhi laakiin maaha waa nin iminka soo korayo hadda qaangaadhay ama qaangaadhaya wakhtigaa ku jira nin wakhtigaa ku jiruu nebigu wuxuu leeyahy kun fi dunya kaannaka gariib adduunka waxaad ku ahaataa sidii qof stranger ah qof meel aan safar ku yahay soo galay aw cabir sabiil ama qof waddo goynaya adduunka sidaa ku noqo qadiyaddaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wiilkaa yare cabdillaahi bnu cumar ibnu alkhataab oo uu sheegay wuu fahmay wiilkaasi waa weyleeyey saxaabadu waxay naga gedisanayd waa taa waxa loo sheegaa bay weyleynayeen way fahmayeen kadib cabdillaahi dadka markuu la dardaarmayo wuxuu ku odhan jiray idaa amsayta falaa tantadir الصabaax وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك إمام البخاري soo saaray wuxuu dadka ku odhan jiray ibnu cumarna war hooy haddaad galabaysato waa beriga ha sugin iminka aakhire usii diyaar garow waagaa kuu beri doono berrina waad sii shaqo tegi doontaa oo halkii baad arrinka ka sii wadi doontaa taa ha sugine xisaabta waxaad ku dartaa caawa hadday kaa baxda maxaa xala falaa tantadir الصabaax wuxuu ku yidhi haddaad waa berisatana galabnimada ha sugin xisaabtan caafimaadka intaad qabto bukaankaaga u sii qaado dadku markuu dhakhtarka gale xanuunsado haddaad imika dhakhtarka tagto oo aad dadka weydiisa maa hiya umniyatak maxaad rajaynaysaa maxaad jeceshay inaad hesho maxay odhanayaan dadka dhakhtar ku jira inaan caafimaado soo maaha inuu ka kaco ka suuqa jooga haddaad ku tidhahdo oo bal caafimaadkaaga ka warran oo maxaan ku haystaa waaba gaajoonayaa buu leeyahy keerna umniya buu yey wuxuu is leeyahay ilaahu yaa marunku kiciya hadduu bilyaneer yahay wuxuu is leeyahay bilyanka haddii la yidhaahdo wadnaa lagugu bedelaya ma bixinaysaa wuu ogolyihi waar waan iska xoogsan doonaa nolosha dib baan u bilaabi buu leeyahay bal horta wixii lagu caafimaadayoon ha lagu bixiyo laakiin haddii la yidhaahdo 100 kun ka bixi waar xooluu dhaqdhaqiguma soo gelin buu leeyahay kunkaa qaata saxanka maaha qof gaara maaha waa dhammaanteen waa saa inuu haddaanad adigu naftaada wax ka bedelin waa saad u abuurantay saa daraaddeed buu ibnu cumar wuxuu leeyahy waar caafimaadka intaad ku jirto u sahay qaado bukaankaaga berri inaad caafimaad qabi doonto garan maysid caawaad caafimaad qabtaa waad tukan kartaa waad wardigi kartaa waad nebiga ku salliyi kartaa calayhi salaatu wasalaam waxaad doontaad samayn kartaa laakiin berri inaad weysaysan kari weydaababa dhici karta jamac iyo jamaacada inaad gaari weydaabaa dhici wax kastaa dhici kara wa min xayaatika limowtik geeridaada u sii qaada buu yidhi maxay noloshaada walidaalika buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka ka sugan wuxuu u tilmaamayey isagoo nin saxaabiya waaninaya wuxuu ku yidhi war shan u qaada buu ku yidhi dhallinyaronimadaada ka faa'iidayso inta aanad gaboobin caafimaadkaaga ka faa'iidayso inta aanad bukoonin waxayntaada haninimadaada ka faa'iidayso inta aanad faqrinin inta badan dadku markuu xooluhu dhaafaan buu is idhahdaa haddaad wax ka bixin lahayd haddaad tolka wax ka tari lahayd haddaad aakhire wax geysan lahayd firaaqadaada ka faa'iidaysa buu nebigu leeyay inta aanad shuquloonin dhallinyaradu inta badan waxay dhahaa firaaqada xaggaynu wakhtiga ku soo dillaa maanta waa cimrigaagii qayb ka mid a ayaa le xaggaa ku tuuraa
waqtiga xageen ku dilay xageen isku dhaafina maqaaxida la tagaya maanta oo dhan baa la sheekeynayo waa cimrigaaga in kamida maanta oo dhan baa TV la daawanaya wax laga helaya ma jiro noloshaada haddii la xisaabiyo intaad TV-ga daawatay intaasoo sannadood bay soo baxaysaa intaad maqaaxi fadhiday intaasoo sannadood bay ka warran haddii lagu dhaha intaa cimriga lagaa jaro maad aqbasheen 10 sano dhowr iyo 10 sano markay soo baxda maad aqbasheen markaad haysato si saad u isticmaalaysaa waad saydhinaysaa qofka bini'aadamkii hantida ugu weyn uu haystaa waa cimrigiisa hantida ugu weyn aad haysataa waa waqtigan yar waqtigiibaaba waxaad ku qabatay daaya aad la'day meelaad ku disho xageen waqtiga isku dhaafina xageen waqtiga ku dilla xaga waa adigoo leh cimriga in kamid ah xagaan ku tuuraa noloshaydii cimrigayga in kamid ah khasaaraha aanan rabina xagaan geeya walidaalika nabigu wuxuu leeyahay firaaqaaga ka faa'iidayso inta aanad mashquulin qofku markasta uu sii weynaadaba mashquulkiisa badanaya waayo xidhiidhku bulshada la leeyahay ka badan ninka dhalinyarada ee xidhiidhku la leeyahay saadaradeed qofku da'diisu markastoo ay yartayba waqtigiisa oo dhan isagaa leh laakiin inta badan dhalinyaradu ma garato kama faa'iidayso qofku markuu sii weynaadabana yaa waqtiga kuu kordhiya buu isla 24 saacadoodba ku yaraada stress buu qaadaa suu leeyahay hebel la ballan baan la leeyahay xagga ballan baan ka leeyahay reerkiina xag buu sugaya qoladana waxan bay rabtaa idan nabigu wuxuu leeyahay warintaanad mashquulin firaaqada ka faa'iidee intaydan geeriyoon baa nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam nolosha ka faa'iidayso ayuha alahibba rajadan tirada badan leh quraanku wuxuu inoo sheegayaa inay tahay aaladda ibliisku uu bini'aadamka ku lumiyo waa farsamooyinka ibliis adeegsado ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay ina aladiina irtaduu calaa adbaarihim min bacdi ma tabayana lahum alhuda الشيطان سول لهم وأملى لهم بإلهي كوان دين تكن نقضي يقول هنونك أنتوا وعد هذا كذب شيطان كأوحو قرحيي الرجال لي بإلهي لي إذن وأملى لهم أمل كان داري وفرسمة الشيطان وضدك كل ميو نبي آدم حكو يدي مركو الربين وقات كعنه يعني وباهي بن آدم كو قبه ولذلك آدم بهالكاس على قال عمري قال قول يراني يا بالوير قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى جيت كوارتان كما كنت سابق يري جيت هذا الله يكون عاصي سما كنت سما أورانين النبي آدم الله شيء جيت هداد عنته أدين بدن شريسه آدنيه أنتو ضليبين إن بدن شران ويشعلي لكن واحد رسمي جاهي وحويان قفكو إنه الديار نقضه maxaa cilaajo ah arrintan abuurkeenna ah waxaa cilaajo ah dikru lmowti waalaakhira aakhira xusuusteeda inaynu badinno innahum yarawnahu baciida wanaraahu qariiba baa ilaahay leeyahy dadku wax fog buu u arkayaa annana wax dhow baanu u aragnaa buu nebigu ayuu rabbi leeyahy subxaanahu wa tacaala nebiguna wuxuu leeyahy calayhi salaatu wassalaam حديث بن أبي الدنيا وصوصار الشيخ الألباني حسب كتل المامي نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد ومضة دد كيدي هوري صحابة دي دد كيدي هوري وحي كبت بادين بو النبي يري يقين أي إلهي يا آخرة يدين كودا يقين كو قبان الربيسين شكي كغيرين إيا الزهد أدون كو أنهم قرقي سايسكي ريان الدنيا جعلك أو زهد كقاتين إيوه يقين أي رب قد يا آخرة إيوه وحي الله شاكك قبان ويهلك آخر هذه الأمة ابو نبي ومدن انت هذا الدنبنا وحي كهلك سبي دون تامحي بالبخل والأمل ابو نبي قعنا ضيق ربع النمو قعنا ضيق أفكو يصير هذون أديك أكو ما في الله بني آدمكو wax kasta oo haysto ka dambayso mu ka sii baqaya faqru ka cabsi qaba هذا هو عينك dabeetana nabigu wuxuu leeyahay ummadda dambe waxay ku halaagsami doontaa laba shay gacan adayg iyo amal rajo insha Allah barina waad sii noolaan doontaa sanada wali ku hadhay waqta hadhay wali dhalinyaradu shaydaanku ku oran adiga wali kaama dhawaday imkaad bilowdayba والله بدي كوها لك سمين بالنبي قولي عليه الصلاة والسلام حديث الترمذي ابن ماجه ورينا إمام النووي
وريادكيسا كسو صاري شيخ الألباني ضعفك كشيغي معنو سووا صحيح يهي وحط المامية الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت كيسكو عاقلك وقفك كسمضة في عن نبي حلي عليه الصلاة والسلام هدو حديثك السجيي كيسكو قفك عقلك بدن لي وقفك جيريدة وحكا دنبيه وحوك سده هبال وحا عيني حكمة صحيحة طاي جيريدة وحكا دنبيه قفك وحوك سده عاجسكنا قفك تمرت الدرن لنا وقفك نفتيس هودي سيسكر عضه وتمنى على الله الأمان يعني إلهي نون إن شاء الله إن الله غفور رحيم رجادنا اسكقبه إذن أيها الأحبة إلهي حين ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به يدي دين يا أمنية دين يا وحسكر رجال إنسان أهل الكتاب كي يدك طور ما هبا إلهي مسلم كأيو يا كريستيان يا يهود بالله قرنقي إلهي وحلا إلا بدي نقول بشجع شذا شجع إنسان رجال غبطان أركم معها إوام حي من يعمل سوءا يجزى به نور بوحش غيستابوا لي يا رب لي ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها أراد كوي هراء وحالة المامي يريدون الحياة الدنيا وزينتها كون ونفس الشيء ومن أراد الآخرة آخرنك الدنيا قصدك سو آخرية ما أنتوا آخرة ضريب وسكفر استيمايا حركة يدغنغ وكدر وسعى لها سعيها بإلهي شغل آخرنا قبطي آخر شغل قاري إلهي وسعى لها سعيها بإلهي قفك آخر الراد عينيا لوجه الله وحص مينيا سعيه الله بهنانا لا إيمانيا إسقوا مؤمنة فأولئك كان سعيهم مشكورا بإلهي كواسي وحي قبطين يسعي قودة وهلقها بالمرينيا أيها الأحبة ما أنت واحد قبان كرته يتبرئوا على علي سادر أدد ما أنت إن أدو الديار قروا ضابها بون حديث إمام الطبراني إسناد حسن وكسو صاري شيخ الألباني صحيح ترغيب كوكو أرورنا يوحو النبي يقول عليه الصلاة والسلام حبال بصومر النبي مركز وحو من صاحب هذا القبر وان حباشني وحباشي كوما رسالة دوا هبل وانين تومي إذا حباشي أيو النبي يستول تاقو حباشني وكوما فهلو يقول حباشن هبل باكو جرا النبي يقول صحابتي انتو كوتشيستو مركز وحو ركعتان أحب إلى هذا من بقية الدنياكم بنبوه لبا ركعدود وصلاة وتكدو أيام ما أنت نيكا جعليي أدونك هيستان ودن نيكا هدي الله إذا أدونك ودن يا لبا ركعدود كيبا دورانيسا لبا ركعدود بك جعليي بنبوه تلمام يعني حبال دوشيد بنبوه هو عدنا يا صحابة ديس حانو شيغيا لبا ركعدود مركا لغادا هالكاس إنك قيمة بدن تهي wixii dunida la soo qabto dhan hadii amalku iska dheeraado oo diyaar garowgu yaraado oo dadku sidaa ku dhintaan calaacal baa ka dambayn doona yaa laytanii qaddamtu lixayaati rabbi irjicuun lacalli acmalu saalixan fiima tarakt ilaahayna bini aadamka uu yaqaanaayo wuxuu tilmaamay walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu baa ilaah yidhi wax ka cajab badan bini aadamka dabcigiisa هدي اللي علين لها بإلى هيري هل كي أمي كبلا بلا هيرها ترى غريب صومها من كان تصهار كان نار يبلا هيدا شرته مركو هل كان يماده هذا هل كي أمي بقى ميسكرها هذول دي بلو عليا بإلى هيري هل كي أمي كم ميسلا هاي وهي فطرة الإنسان واتيون لكن قفكو هدوكو تلقلوا إلى يوحين إلي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وركوا إيمانك لغاها ليو ورا لك عبسد بري كيف فكر بالي نفي وحي بري ودقطي آخر واحد جيستي كائق بايل هيري إذن أيها الأحبة علاجك هو إن مسألة تانية وحديث النبي عليه الصلاة والسلام ويري أكثر من ذكر هادم اللذات بدي أبو النبي عليه الصلاة والسلام حصوصتان مع معانك كجوية
macmaanka ka gooyaa waa geerida dhulka gaalada waxaan arkay gaaladu ma jecla geerida in laga warramo meelaa fadhidan haddii geeriya waxaa lagu kala dareeraan waa kaa kacayaa inay ilaabaan bay ka jecel yihiin ma jeclaa inaad xabaal iyo geeri iyo baabka inaad agtooda kaga warranto ma jecla inay siilowsiyaan bay rabaan nebiguna wuxuu ina leeyahay calayhi salaatu wasalaam xasuusta geerida badiya oo xasuusta geeridu waxay noqonaysaa markaynu caawa masaajid ka baxna haddaad tidhaahdo war bal caawa hadday naftu soo noqon weydo talow xaggaan qaban dee waad xisaabtamaysaa caawa haddaad tidhaahdo war naftu xaggay qaban hadday baxdo waad xisaabtamay sida awgeed buu nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam geerida xasuusteeda badiya idan ayuha alaxiba amalka tirada badan leh adduunya jacaylka tirada badan leh khaflada tan dadka ku dhacday yaynan sida gaalku u fakero u fakerin gaalku intaasunbaa u muuqataa maadadaa yar adduun inaad gaalun kula loolanto aakhiraba ilowdo waa cajab dadka muslimiintii waxay u baahan yihiin inay iyagu aakhiro xasuustaan dadka kalena inay aakhiro xasuusiyaan nolosheennu markaynu xisaabinno inay aakhiro boos ku yeelato maanta waxaan qabanayo inaan ku xisaabtamo aakhire maxaan geystay caawa markaan seexanaya inaan ku xisaabtamo waxaan soo sameeyey waagu markuu bariyey ilaa iyo gobolku intuu dhacayay ama waad hadlaysay ama mid hadlayaa degaysanaysay socankaa maaha waagu markuu bariyey baynu hadalka bilownaa haddaanaad adugu hadlayna mid kaloo hadlayaa degaysataa markaad seexato bal xisaabiyo intii aad maanta maqashay ama ku hadashay imisaa kitaabka fiican kuugu qoran baad u malaynaysaa imisaad saladay baad ajar ka helaysaa imisaanad se ajar ka helayna idan hadalkaagu warduu u badan lahaa haddii xisaabtankaagu badan yahay warku wuxuu ku kooban yahay oo naftayda iyo tiinaba ku waaninaya noloshan aynu israacinnay aan ka gaabsanno macnaheedu ma aha iyaan la xoogsanayo caynkan xoogso laakiin xoogsi aakhire ku geynayo xoogso markaad xoogsanayso xalaal xoogso xalaashaas iyo cibaadaadkaaga iyo diinkaaga ku dhaafini ku talagalun caawa hadday kaa baxdo waxaad ilaahay la hortegi lahay aqwaasha salafka laga soo arooriyo haddaynu akhrino wakhtigu kuma filla laakiin aqwaal badan ba salafku waxay tilmaamayaan rag ku xisaabtami jiray salaadan salaadeeda inaad tukanayn anigu berri baa is yidhi ma ilaa berri midi wuxuu yidhi anigu ilaa berri kuma xisaabtama ilaa caawa waad noloshaad dheeraysatay buu ku yidhi anugu salaadan salaada ku xigta inaanan gaadhayn baan ku xisaabtamaa buu yidhi idan tanun baan si fiican isdhaaha u tuko ilaa tii dambe lama hubo inaad gaadhi doontee hadduu arrinku saa yahay salaadaheenna way hagaagayaan salaad khushuuc lay noqonaysa haddaad se isleedahay kollay maalmaad sii jiri doontaa kuwa dambead hagaajin baad iska dhaadhicin khaatimadaad fiicnaysiin doontaa ilahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu khaatimada khayr inoogu khatimo kuwii aakhiradooda ka fakerayna alla inaga yeelo inta aakhiro u xoogsatay adduunkana hilmaamin in rabbi inaga yeelo sala allahuma calaa muxamedin wala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin شكر الله لكم وبارك الله فيكم ورفع حولكم في الدنيا والآخرة. شيخ الله سبحانه وتعالى